kowda December waa maalin u astaysan xuska maalinta cudurka HIV/AIDS-ka iyadoo laga xuso dunida daafeega ayaa Soomaaliland waxa ay ka mid tahay wadamada laga xuso. haddaba magaala madaxda gobolka Awdal Boorama ayaa ka mid ahayd magaalooyinkii laga xusay maalintani iyadoo munaasabad ballaaran lagu qabtay hotel raysay magaaladani Boorama ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada mas'uuliyiin ka socday hay'adda Bisha Cas isuduwayaasha wasaaradaha diinta iyo waqaafta arrimaha bulshada hogaanka dhaqanka iyo bulshada qaybaheega kala duwan intii haddaba ay munaasabadaasi socotay waxa halkaas hadalla kala duwan ka soo jeediyay isuduwaha komishanka xakamaynta cudurka HIV/AIDS ee gobolka Awdal Nimco Cabdi Xasan gudoomiyaha hay'adda Bisha Cas Mooga Cali iyo maamulaha hay'adda Bisha Cas ee magaalada Boorama Marwo Ifraax Cismaan Reydal ujeedada la qabanaya waxa weeye dadka la nool xanuunka in lagu dhiirigeliyo iyo halku dhiga maanta oo ah ciribtirka faquuqa iyo cudurrada faafa marka farxad bay tahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan lagu xusayo World AIDS Day-ga waana soo dhaweynayaa xafladuna way noo furan tahay maanta halkan waa maalintii sanad kasta aan xusi jirnay oo ah xuska HIV/AIDS-ka loo xusayay taas oo ah macnaheedu tahay xasuusin dadka in la xasuusiyo wali inuu jiro waxaad moodaa bahalkii in la iska yara ilaaway bariyaha dambe aniga magaca ururka Bisha Cas ku hadlaya waxaan idin leeyahay baalkaas iyo ka foojignaada hadiyo jeerna masaajidada waa laga hadlaa meelaha dhaqan waa laga sheegaa xanuunka hadii la laga shirayo qabana Allah caafiyo waxaan qabina Allah ka nabadgeliyo wuxuu u baahan yahay digtoonaan maalintii AIDS-ka adduunyada oo dhan baa ay ka wada hadlayso ay iska wacyi gelinayso dhibaatadiisa ay tilmaamayso daahfurkii ugu horeysay waxa sameysay wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska xanuun la dhayalsan kara maaha way jirtaana in faquuq lagu sameeyo dadka nugul oo waxaan leenahay regional coordination meeting intayna kale ee gargaari kartaana ha gargaarto hay'adiisay fardow sheegtay wax siin jireen oo Allah ka yaaba loo soo noqdo waxaan leenahay insha Allah taala ka wasaaradda culumaha waan iska rabtaagana wixii looga baadana diyaar baan u nahay marka waxaan leeyahay dhalinyartu iyo bulshada inteeda kale waa inay taxadirto caafimaad ahaan annaga culays iyo walwal badan ayuu nagu hayaa imika waxaad moodaa wacyigelintiisu inay yar tahay taasina waxay sheegaysaa inuu xanuunkii haw socdo laakiin dad badan aanay ogeyn duqa Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe iyo barasaabka gobolka Awdal oo hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa bulshada la dardaarmay ummadda la xasuusiyo in xanuunkani yahay xanuun jira ummadana dhibaatooyin fara badan u geysta oo aad moodo in la iloobay saameyntii ummadda ku lahaa HIV/AIDS-ku marka maanta waxaynu ummadda ku baraarujinaynaa in xanuunkaasi uu yahay sidiisii ummadana la gaarsiiyo in laga hortago marka furu ila Allah daasaynu qaadanayna inagu xagga Ilaahay baynu yaaxaynaa diin baynu leenahay diinteena isu dhaqanka ugu wanaagsan waa man iyo walbuuga Ilaahay dadka soo raaciyay kaas oo hadaynu ku dhaqanana waxay naga xumaanayaan ma jiraan aad baan idinku amaanayaa hawsha wanaagsan ee qabateen waa xasuusin waa la iloobayo bahal yaro coronavirus la yiraahdo intuu adduunyadii galay ayaa cudur kale oo dhanba waa la ilaabay adduunyadu kaas uma imka hadlaysa gabagabadii waxa munaasabadan soo afmeeray agaasimaha waaxda wacyigelinta komishanka la dagaalanka cudurka HIV/AIDS-ka Soomaaliland Muxyidiin Yuusuf Ibrahim waxana hadaladiisii kamid ahaa halku dhaga maanta la qaatay si guud waa takoorka iyo daryeelka dadka xanuunka la nool inta ay dugsadaan amba ay u soo caawdaan waa dawladda marka guud ahaan gobolka iyo degmadaba waxaanu ka codsanaynaa ka soo lagahaan dadka in loo dhaga nuglaado